إبراهيم وجور ما تكقن عضي شباب وهذا استري وحنا تقص عطوا ما طريقة تكون من الله هيد تسلكوا قل هيد nin baa laga sheegay hadda magaciisa sheegi maayo laga yaabo inay meel ugu qoraan inta wixii fiiriyo nacayb isaga tagay nin oday weyn buu ahaa markaas ay leeyahay jihaadkii aad ka tagtay lafdigaas ay u isticmaaleen markaas uu yiri jannooyinka jidadka jannada lagu tago waa badan yihiin fa inna turuqal jannati siwal jihad kathiratun aray noocaas laga soo wariyay ana waxaan jihaad ku adleerin jihaad ma ahan ka wada wixii ma la xakameyn kartid wixii qaldan ma six kartid waxaas qaldan yacma dhihi kartid ma toosin kartid baatilku hadduu xarkaha goosto aadan toosin karin waxaad naxariis alla ku qabtaa inaad saga tagto wadan ku dhex dhimanin anigu nimankaas muddo 2 sano ama 3 sano ahaba waan ku dhib qabay la noolaashooda wixii marka xarkaha goosto inaan arkay dadkii aan loo naxaynin baashiiba ila maamul iyo shacab waay ururkiiba shacabkiisii maamulkiisii inta ururka ka tirsan ay ku ururtay ummadaha kale in wax laga qaado ma ogi aan wax lagu celinin sharciga inuu ayaga qabto ma ogi aan ayaga wixii loo geysto aan sharci dadka kaga qabanaynin waxaan waa qaldan yihiin hal daaya aan dhihi karin tareen xarka fariinka goostay oo noqday sifa aan u joogo markuu ay dhibtay waan iska gaabsaday fircoonidii hore waan iska daayay nin safar gala qabaa'ilada isku dhaca loo diro odayaasha la hadlo oo aad u firfircoon bana barayfad baan iska furtay tinsoor baan markaa joognaa arabi iyo inaan dadka u dhigo safaradii la ii diray masaajidka kitaab baan akhriyaa baan dhahaa iska mashquulay Axmed Yiriyoon markaas wuxuu qabtay ururka guud dacwa la iga gudbiyay marka nin hadda la diray Yusuf Jiis la dhihi jiray buu ii soo diray oo amniyaadka qaybta hay'adaha ama mutaabacadana haystay Axmed Yiriyahana ninka amnigiisa sida gaarka mas'uulka oga ahaa tinsoor telefoon ii soo diray markaas yiri magaalada ma joogta ha uu igu yiri ilaa iyo duhurka dad meel safar u ay tabixin ilaa aan isarag ninaan saaxiiba ahayn baan la tashtayno ninkaas ay soo wacay wuxuu iga rabana ma fahmin markaas yiri waxa laga yaabaa ninkii odayga inuu ku rabo waxa ugu badan ihtimaalka ugu badan oo iman karo waa kaas salaadii duuran tukanay telefoonka iga soo wacan ku celiyay xagee suuqa xoolaha igu imaa roomeel duura magaalada banaankeeda saanu socday waan taga suuqa kaliis geed fadhiya geed hoostiisa yaan ugu tagay markaas lacag 5 kun oo ii dhiibay wuxuu odayga ku soo salaamay ragiisa ma ilaabin niyow maalmahan sifaad u yar $5 ha iyo adu yar qalqaloocda barayfadkani waxaan aad isku mashquulinayso iska daa hawshan inaad u gacan banaanaad u tafaruqda shaqada camalka laga rabaa saas ugu soo yiri marka ninkan wax ii keenayeen adduunka ugu nacba amniyaadka oo dhan saasan cul waahayn barigaas maxaad ku nacday akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada inaysan diin iyo waa kuwa wax dilamaya marka waa kuwa wax laaya waa magaalo ay xukumaan ay dadku dilaan habeenki qofka inta la soo qabto maxkamad la saari karo oo hatta dambi hajiro ama aysan jirin lagu oogi karo tii suurtaas oo goor ay ku sameeyaan anaguna maamulkeeda hayno waay fariinta kaaga wada biirooday oo ku soo salaamay bas eray kale ma dhahin iyagu salaan fariintan way soo gaartay dhawaana maadsanta waan ka soo kacay marka sideen kaga soo tagay marka muddaba waxaan ku haminayay inta ka aada inaad xamar soo aadana wax sahlan ma sabab inaad ururkan dhexdiisa intaad dhex qaado ku safarto waad ku safarto haddii lagu ogaadana waa badil ilan gaalnimaad bilaabaysaa marka inaad dhex joogtana waa qatar inaad dhex joogto raalli kuma tiid inaad ka tagtana waa riski kaleeto waay markii dam waxaan ogaaday markii in la igu soo maqay markii su'aalahaygu bateen arintii Daasha dhalatay cali dheeri wafdi hogaaminayna loo soo diray su'aalo dhowr aan weydiiyay wafdi kale la soo diray adii farafiq fiiqi ay marka waxay sameeyaan nin weyn oo kale markay rabaan ma inay dilaan ama ay qabtaan dacayad baa loo magaalada loo galshaa ninkii Daasha noqday kanuu noqday jaajuusnimo lagu tuhmaya telefoonadiisu waa badayeen hadhow hadii lagu la kaco marka dadku walaaba la ogaa suuqa lagu sii gelina si lagu xalaashaysto CD kaaga loo xalaashto marka dacayad ba suuqa la igashay Daasha noqon rabaa tuhum man khiyaaro kadib Daashtiin waa soo afjareen waxaan ogaaday markii in la xiri doono hal mar aan go'aan qaatay mootan kaga soo fakaday meel boola fulay la yiraahdo mooto laba lugood leh adiga kaliya wata
أنا ما ودين درا والبان سو كريستي تورو waxaan ku yiri waad igeynaysaa waad isoo celinaysaa 4 saac iyo bar oo habeenimo mootada marka meel tuulo kalan ka imaanay hooyaday anta soo macsalama ma ogaayad inaan bixrabo uma sheegin inay walwashan ka baqay walwalkeeda laga sii ogaado warka xawal barbaar meel la yiraahdo deganeed gaari nin kale to isla ayaga aan soo raacay wala fulayd aan imid 4 saac oo habeenimo mootada marka nin baan ku riisi karay tooro waan rabaa waan soo noqonayaa qof kale ma sheegin mootadii aan ku dhacay nin kale marka la saaran inuu heshado leena dhulkaan mari doono dhulka hiri go'ana marka saddex qof way qaadaa mootada way qaadaa marka waxaan ku yirnaa ma safar saddex qof mood kuma raaci kareen ka anaga reeb war uu wehelinaya ma jirtaan ku dhac oo naga haray tani madaxana aha mooto la iguma aqoon gaari baan wadan jiray ninkii af mayga intaan iska bedelay baan may af maxaa tiri aan kula hadlaa su'aal uu weydiiyaa waa iska xiraa warkiisi samaacad weyn baa ugu xirnaa nashiidu ku tuurtay baa sageen 4 saac baran ka baxay meeshii toorowdii wadooyinka dhuxulay baa wada kasta meel wada ka bixisay waan dhunnay 9 saac beenimo meel iska saaxanay haddana subaxdii salaad subax markaan tukanay yaan kacnay mar labaadaan dhunnay aw dheeglaano af galin rabno yan qolo shacab iska socotaan weydiinay waan soo noqonay waana la soo tilmaan 2 saac subaxnimo yan tooro soo galay warkayga marka waxaa la helay 6 saac habeenimo inaan fakaday eeg marka uma sawirnaa inaan xamar soo aadi doono waxa u sawiran baan in duur gali doono on daacish wax daran noqdo isla habeennimadii laga warhelaya isla habeennimadii baa laga warhelay ninka marka amniga qaabilsanaa gobolka tooro marka ku sugnaa la soo wargeliyay 2 maqaayadooda ku taal tooro dad ay dhigan yaqaan ana maqaayad kuma leexan gurigan ku dagay 12 saac subaxnimo mooto kale afgo iiga soo baxday marka ninkii lacagtan kula heshiiyay lacagan ugu daray waxaan ku yiraahdaa ku soo taabanayay orto magaalada iska galay uu dhafarsanaayo iska saxda gurigan ku dagay ninkii guriga quraaco ii sameeyay 4 saac markay mootadii kala soo gashay 2 saac soo galay 2 saac bas markii tooro joogay mootadii kala ku soo dhacay وأنا مركب ولي قد بكتر بانك قاطع واحد شباب وجوديه سكوا حين جرو فرسمة دي قانون لبان إنه وين باصار عند رف قويا لحظة ضم بلا إنكر شلي ما بعرفها تور وسانو بصبح 4 ساعة لحساعة سوق قلي أفقوي شبابنا ما أرك أسكر دولة ما أرك بس نقولي كلام كده جاي لما كي حمر بتحكي فريبة مركز سيستي قبلك نبتسوي ده قافون وحوجو جاي نبتسوي ده جود markii hore waxay dhaanaa helicopter aan ku soo dirnay qasab dheer tag waxaan ka baqay marka ma Ethiopian ku dhaxda ku dilaan waxaan ku dhaanaa imaanay lacag oo soo diray markaas aad joogto markaa Diisor maya xawaal barbaar ayaa xiriir la sameeyay dawladda xawaal barbaarana joogan xiriir la sameeyay in hadda South Africa jiro oo xafiiska waxbarashada iskala shaqeyn jirnay waa ay iska soo buriyeen yani ka soo goosto ka soo tagay yaa idii jiray warniyo nin maskax fiican baa tahay waxaan isaga soo tago u kaadi Janice aan helan dhigi jiray markii baashi khatartu gaartay kiya waxaan ku iri warniyo baashi maanta taagantay abdaxkiin kan ugu soo xiray abdaxkiin waxa la gobol joogtaa ninkii heer nisa joogay ugu soo xira General Gafo saddexdooda wada fadhiya isoo wacin marka waxay dhan inta kuugu dhow qasax dheer waxaan ku iri 720 kilomitir jirta waxay helicopter aan ku soo diraynaa meesha tag waa fikiray waxaan Ethiopian kan iska jabhada adoo dhuqdhuq loo socda hadaan madax kuugu dhuftaan wax kala ay sawiran ana colaad kala ay ugu jirta waxaan tan ku leeyahay 2 sano ay ugu qaadatay ama helicopter-ti xamar ka imaanaysay inta sugaysaba diyaarad kale inta lagu saaro hadii sabab laga dajiyo loo aamin way marka General Gafo inuu kula soo hadla damaarada ku siisay damaanada ay siisay waay kadib baan afgoyana mid afgoy markaan mid Abdixakiin ka soo wacay waxaan ku iri afgoyn jooga telefoonada iga yaqaaneen marka waa dansan yihiin qiyaama istaagtay warnankii baa baxay daacish oo noqday ma yaduur ku galay man noqon adduunka dhamma isla istaagay telefoon kala ishidan iyaga laga baxsado waa dhibaato weyn ku tahay dawladda qof aniga oo kale oo bulshadu taqaano oo dadku la hadli jiray oo sheekh u ahaayo wax khatar weyn bay ku tahay dad badan baa sida loo hayaa oo waxna loo haynin oo lana lagu qanacsanayn ayaguna aan bixi karin haday baxaan la dilaayo waay kadib meeshan qadan la ii kariyo waa iska qabaystay waan nastay waan saaxday casarkii yimaadeen afgoy marka afgoy marka timid adigu waa dareentay inaad xoogaa amniga dareentay
amni baan dareemay guri caadi aan deganaa warkayga lama hayo oo aniga telefoon kale aan haystaan kala xiriira reerkaygana markaas waxay degan Saako caruurtii Saako ayaguna habeenkan usoo hooyan doona xamar Saako ka baxaan kuwa baro u soconaa bay dhaheen guriga alaabta wixii yaala way ka tageen jilib habeenka ku waytay gabadhii caruurteedii isla subaxdii baawar kale ka raaceen habeenkan TV-ga ka hadli doonay oo Kismaayo galeen marka waa ku sii tala gashaday qoyskaaga la dhibaatay deedii kale waa laga wareegay caruurtii reerkaba waa laga wareegay waa la guursanay islaantuna dib dambe soo arkimaysan waxaan sameeyay marka bas maxamar aan ka imid guriga la dejiyay waan iska degay waxaan irimayo suga baashi qiyaamihii baa socday bal maalmo ay suga marka xasan baa doorasho soo dhow dawladda campaign ku jirta xalina ina hadasho waayo saan warqad ay keenan gururada ay keenan ana qortay marka qodobadayda habeenkii shir jaraadan qabtay reerkii markay ii gudbeen aan arkay markaan hadlay isla habeenkaan hadlay subaxdii kaale wax soo dejiyay adeeg ku idaacadaha haystay internet oo la soo dejiyay file baa loo galay in warkii la dhageysto ninkii ridoobay gaaladii uu galay intuu ka baxay haddana qodobadii aan ka hadlay baa dhibay waan waxaan ku dhahay islaamka ma soo bixin urur baan ka soo baxay te ururku uu khaldami karo wana saxsanaan karo markaan galay tawxiid la ima qaban sidii qof soo islaamay markaan ka baxay saanu gaaloobaya in diinka ma soo bixin urur baan ka soo baxay diinna kuma jirin muslimaan waay marka soo ka soo bixitaanku marka waxay ahayd xaalad ilaahay garan karo qiyaas adigu marka timid gacanta dawladda gashay maxaad dareentay isbedela yarkiba yimid horta amin galab aan abd xakiin asla fadhina markaas yiri la takhafna jawta min alqawmi adh-dhalimin ma ilaahay qabta habsan buu yiri dhalimintu waa badbaaday weligay ma ilaabin ayada sanad weligay akhrin jiray hatana booskeedu ugu qabtay macna ku samaysay macna ay samaysay Allah dadkii baan iskala sheekaystaa madaxdii baa ay iimaanayso caadi baan noqday bas dadkaygan ka mid noqday waana qof nin Soomaaliyeed ah inaan ahay wadankan wadankayga haddaan dambi galeen dambi baa lagu oogi karaa laakiin dalka aan la iga musaafirin karin ma dalka la aqbalaa jira Soomaaliya nahay